Bismillaahi Raxmaani Raxiim waa mar kale iyo barnaamijkiini Raxmadii Dunida kaasi oo diiradda saaraya taariikh nololeedkii Nebi Muxamed calayhi salaatu wassalaam. qaybtan 34aad ee barnaamijka Raxmadda Dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam ayaan waxaan diiradda ku saaraynaa safarkii wadadii Madiina qaybteedii labaad. muddo 3 maalmood markii raxmadii dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam iyo Abaabakar Ilaahay ka raali noqdee ay sii socdeen ayaa ninka la yiraahdo Suraaqa bin Maalik ayaa waxa uu yimid markaasi ayaa ninkii la weydiiyay oo lagu yiri ma aragtay nimankaasi markaasi ayuu ninkii ku jawaabay wax ma arkin laakiin meel halkaas ayaa waxa iiga muuqanayay bidhaan dhowr qof oo wax saaran yihiin. Suraaqa markii uu hadalkaasi maqlay dhareerka ayaa ka daatay isaga oo rajaynaya in boqolkii halaad u soo gacan galeen waxa uu fahmay in raggaasi la tilmaamayo ay yihiin raxmadii dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam iyo Abaabakar Ilaahay ka raali noqdee. sidaas darteed ayaa waxa uu sameeyay qorshe uu ku rabo in ragga meesha fadhiya aysan arinta fahmin si aysan geela ula qaybsan. wuxuuna yiri waraamus waxaad aragtay waa nimankii reer hebel oo geelu ka baxsaday oo halkaasi marayay. halkaas ayaana arintii looga aamusay oo waxaa loo qaatay in Suraaqa arintiisu dhab tahay. Suraaqa bin Maalik ayaa markii muddo meeshii la fadhiyay oo arintii la hilmaamay ayuu waxa uu yiri intaan kacay oo aan galay gurigayga ayaan jaariyadayda la hadlay oo ku yiri faraskayga gadaal iga bixi oo buurta gadaasheeda iigee. aniguna intaan la bistay oo hubka iga qaatay baan dhuumasho ahaan faraskii ugu tegay. dabadeedna waxaan ka daba tegay rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo raggii la socday. markaan u dhowahay ayaan qori tuurtay. markaas waxaa ii soo baxday kii aan necba oo inaan wanaag ka helaynin oo aan ku khasaarayo. aniguse kama yeelin arrintaasi oo hore ayaan u sii socday. markaan ku dhowaaday ayuu faraskii cagaha dhulka si fiican ula galay qaacna ka baxay meeshii. markaas waxaa ii caddaatay in Muxamed aanan waxba gaarsiin karin uuna guulaysan doono. sidaas darteed intaan qayliyay ayaan ku yiri ammaan ayaad iga helaysaan waana idin nabadgelinaya ee Muxamedow ii qor warqad ammaana si haddii aad berri wax u qabsato oo aad u guulaysato aan u haysto. raxmadii dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam ayaa waxa uu amray Caamir ibn Fuhayr inuu warqad u qoro. Suraaqa ayaa markaasi hadlay oo ku yiri rasuulkii Allow maxaad iiga baahan tihiin cunto iyo wax walba waan hayaaye. markaasi ayaa lagu yiri waxba kaagama baahanin ee waxaad aragto uu naga sii jeedi. waayahay ayuu isna ku jawaabay. dabadeedna markii uu laabtay cid uu arko wuxuu ku dhahayay dhinaca aniga soo maray oo cid idinkama jirto. raxmadii dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam iyo raggii la socday waxa ay gaareen Quba oo xoogaa ka baxsan magaalada Madiina. waqtigaasi waxa uu ahaa maalin Isniina 8 Rabiicul Awwal sanadkii koowaad ee Hijriga. dadkii muslimiinta ahaa ee magaalada Madiina joogay oo isugu jiray muhaajiriintii Makka ka timi iyo ansaartii degneed magaalada Madiina markay maqleen in rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka soo baxay magaalada Makka ay heegan galeen oo maalin walba waxay tagi jireen duleedka magaalada Madiina iyagoo fiirinaya waxa soo socda. sidaa u ahaayeen ayaa maalinkii dambe iyagoo sidii u sugaya markay qoraxdu ku kululaatay meesha ka tageen. markii ay tageen ayaa waxaa raxmadii dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam arkay nin Yahuudi ahaa. markaasuu aad u dhawaaqay oo yiri waxaad jeclaydeen oo aad sugayseen ayaa yimid. muslimiintii ayaa soo firxaday iyagoo hubkoodii wata oo takbiirsanaya rasuulkana sallallahu calayhi wasallam soo dhaweynaya. dabadeedna hareeraha ay ka galeen. raxmadii dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku degay reer Bani Camr bin Cawf xaafadooda. gaar ahaan wuxuu sii degay guriga ninka la yiraahdo Kalthum ibn Hadami. waxa uuna halkaasi ku nigaa 4 habeen. dad badan oo muslimiinta reer Madiina ka mid ahaa maysan kala garanaynin raxmadii dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam iyo Abaabakar as-Siddiiq Ilaahay ka raali noqdee. hase yeeshee markii dambe ayay ogaadeen. kadib raxmadii dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam waa fariistay. Abaabakarna Ilaahay ka raali noqday waa istaagay isagoo dadka soo dhaweynaya. intii uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam meesha joogay
ayaa waxaa magaalada Maka ka yimi Cali bin Abi Taalib Ilaahay ka raali noqday oo soo dhameeyey hawshii uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam u xilsaaray iyo amaanadii uu uga soo tegey. raxmadii dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam waxa uu Quba joogay dhowr maalmood, wuxuuna ka dhisay masaajidka la yiraahdo Masjid Quba. kadib wuxuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka tegay Quba maalin Jimco ah oo uu Madiina aaday, isagoo ay muslimiinta dhinacyada ka socdaan. markii uu sii maraba qabiil walba oo ansaar ka mid ah ayaa waxa ay dhahayeen annaga nagu soo deg, laakiin rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu dhahayay hashani way amran tahay, meeshii ay fariisato ayaan ku degayaa. waxay ugu dambayntii hashii fariisatay oo uu ku degay meesha masaajidkiisu ka dhisay oo ay deganaayeen reer Bani Cabdinajaar oo ansaar ka mid ahaa, nebiga aabihiisna reer abti u ahaa. gaar ahaan wuxuu ku sii degay guriga ninka la yiraahdo Abaa Ayyuub al-Ansaari. waxaa iyagana soo hijrooday oo waqtigaasi magaalada Madiina yimi xaaskii raxmadii dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam, Sawda bint Zamca, iyo 2 gabdhood oo uu dhalay oo kala ahaa Faadimo iyo Kalthum. waxaa kale oo la socday Usaama bin Zayd iyo hooyadiisa Ayman iyo qoyskii reer Abubakar oo Caaisha ku jirtay. Caaisha waxay tiri, markii aan Madiina imi ayaa waxaan ugu imi aabbahay iyo Bilaal oo qandhada Madiina ku dhacday. markaasaan Abubakar ku iri, aabe sidee tahay? isagoo xoogaa qandhadu daysay oo leh, qof waliba waxa uu ku dhex waabariisanayaa ehelkiisa isagoo ay geeridu uga dhowdahay kabihiisa suunkooda. Bilaal ayaan isna iri, sidee tahay Bilaalow? isagoo isna tirinaya gabay yar oo tilmaamaya u hiloobidda iyo jacaylka magaalada Maka. raxmadii dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam ayaan u tegey oo u sheegay hadalladoodii. markaasuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam yidhi, ilaahow magaalada Madiinana jeclaysii sidaad Maka noo jeclaysiisay, ama si ka daran. ilaahow Madiina caafimaadi oo barakee saaceeda iyo mudkeeda, kana rar xanuunka iyo qandhada oo u rar juxfa. ilaahay ducada rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu ka aqbalay, waxayna Madiina noqotay meel ay aad u jecel yihiin, caafimaadkeeduna fiican yahay. sidoo kale rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagoo asxaabtiisa ku sabarsiinaya xanuunka magaalada Madiina ayaa waxa uu yidhi, qofkii ummadayda ka mid ah oo ku samra cudurka iyo dhibka magaalada Madiina, waxaan maalinka qiyaame u noqonayaa shafiic iyo markhaati. sidoo kale rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagoo u ducaynaya magaalada Madiina ayaa waxa uu yidhi, ilaahow noo barakee magaaladan, miraheeda, mudkeeda iyo saaceeda barako ay la socoto. ilaahow Ibraahim waxa uu ahaa addoonkaagii, nebigaagii iyo khaliilkaagii. anna waxaan ahay addoonkaagii iyo nebigaagii. wuxuuna Ibraahim ku baryo weydiistay Maka, anna waxaan ku baryo weydiisanayaa magaalada Madiina siduu Maka kuugu baryo weydiiyey si la mida. haddaba qaybtan 34 ee barnaamijka raxmadda dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam halkaas aynoo joogo. waa walaalkiin Maxamed Cali Juxa oo idinkaga tegaya. salaamullaahi calaykum.